السلام عليكم. intaan mowduucina bilaabin fadlan muuqaalkan like noo saar sababtoo dhiirigelin bay noo noqonaysaa kuna soo biir kanaalkeena xog baahiye adigoo subscribe taabanaya. Moobilka maanta waxuu ka mid yahay waxyaalaha ugu horeeya uu qofka uusan ka maarmin. heer waxa aan gaarnay dadka qaar iyaga oo gaajaysan lacagtii ay wax ku cuni lahaayeen ay khad briber ah ku shubtaan. taasi waxayna tusaysaa in moobilka uu nolosheena ka mid noqday. badankeena maanta heer waxa aan joognaa 10 daqiiqo kaliya iska daa hal saace 10 daqiiqo kaliya aanan ka maarin moobil. quraankii la akhrin jiray iyo socodkii badnaa uu qofka socon jiray waa yaraadeen. taasina waxa u sabab ah tiknoolajiyadan cusub. iska daa wax kale qofka qalbigu isku soo xirayaa qolka ka bixi maayo halkaasuu khadkiisa ku isticmaalayaa. waagi hore waxaa dhici jirtay dhalinyarada asxaabta ah inay banaanka aadaan ay magaalada soo warwareegaan laakiin maanta warwareeg ma jiro. waxaa laga yaabaa ninka dhalinyarada inuu baxo kaliya habeenkii. goortuu habeenkii baxona meeshii asxaabtiisa uu la sheekaysan lahaa moobilkiisu isticmaalayaa. run ahaantii isticmaalka moobilada aad buu inoo dhexdegay. saasoo ay tahay badankeena muuqaalo faa'iido lama daawano oo YouTube iyo waxa ka helsan muuqaalo faa'iido leh. koorsooyin cusub baad ka helaysaa. tafsiirka quraanka ayaa ka helaysaa. wax walba oo faa'iido leh waad ka helaysaa YouTube-ka. laakiin badankeena waxaan daawanaa laba qof oo istagaashay iyo heesa iyo waxyaalo aan macno badan aqoon badan inoo siyaadinayn baa badankeena daawanaa. xitaa salaadii waajibka ahayd oo la rabay in la tukado oo ay tahay khasab in la tukado waxaa kaa mashquulinaya moobilka. qofka xitaa haddii uu salaadiisa tukadaba salaadii waxa uu tukadayba ma xasuusanayo. marka ugu dambaysa uu assalaamu calaykum yiraahdo buu soo miirsanayaa wax uu akhriyay inta ragcadood tukaday waxba ma garanayo. waxaas wuxuu ka fikirayaa moobilka iyo maanta maxaa Facebook la soo galiyay iyo kaa comment ma ka bixisay iyo muuqaalka intee like baa lagu saaray iyo waxyaalo aan micno lahayn ayaa qofka maskaxdiisa ka guuxaysa. waayadii hore xitaa waxaa dhici jirtay qoyska intay qol isugu yimaadaan qolka TV-gu yaalo halkaas qoyska lagu wada sheekaysan jiray TV-ga la wada daawan jiray halkaasaa waqti lagu qaadan jiray. laakiin maanta xitaa hadduu guriga TV yaalaba qof soo galaya ma jirto carruurteerka mooyaane qof walba moobilkiisu isticmaalayaa. run ahaantii moobilada saameyn aad u weyn buu nagu yeeshay. midda kale qofka wax micno la isticmaali maayo. YouTube buu galayaa cabaar buu wareegayaa waa ka soo baxaya. Facebook buu galayaa cabaar buu wareegayaa. TikTok buu galayaa waa ka soo baxaya. sidaas buu maanta dhan ugu meeraysanayaa waxba faa'iideysan maayo. waxaa laga yaabaa in muddo 4 sano ama 5 sano aad moobil isticmaalaysay inaad sidaa ku jirtid. ogow waqtiga badan ee kaa baxaya maalinta qiyaamo waa lagu weydiin doonaa waliba daqiiqad baa lagaga xisaabin doonaa. bal aan u soo dhaadhacna mowduuceena. haddii maanta lagu yiraahdo 4 bilood taleefan la'aan noqo maxaa samayn lahayd? waa ogahay ma adkaysan kartid 4 bilood badan tahay. xitaa maalin baadan adkaysan karin xitaa iska day saacad baadan adkaysan karin waa ogahay. laakiin ka waran haddii moobil la'aanta ay khasab kugu tahay oo moobil cusub aadan iibsan karin moobil kaa kharaawayna aadan lacag ku soo samaysatay aadan haysan waad ku khasban tahay in markaa moobil la'aan aad noqotid. sidaas waxay ku dhacday wiil dhalinyaro ah qol wada deganayn sidaadoo kale u ahaa 24 saac khadku ku jiray moobilkii baa ka jabay. markaas hooyadiis iyo aabihiis baa waxay dhanaha ku iibinayaan mid kale cusub. waqtigii sida u socday 4 bilood bay maraysaa oo 4 bilood wax moobil ama uusan haysan. haddaba dadka waa la wareystaa waxbaa laga faa'iideystaa. anigu waa wareystay oo waxaan ku idhaahday saaxiib 4 bilood aan moobil la'aanta ahayd maxaad ka faa'iiday oo maxaa kuu soo kordhay? runtii 3 qodob buu ii sheegay. 3daa qodobna anna qodob kale baan ka dareemay. 4 qodob baan idiin sheegayaa. 3da qodob buu ii sheegay oo moobil la'aanta faa'iido ay leedahay. waxa uu yiraahday saaxiib awalka hore waxaa qof caajis badan oo badanaa daalan indhahaygana ilin baa ka imaan jirtay anigoo wax murugo aan dareemin sida moobilka u isticmaalayo ilin baa ka imaanaysa. sababta ay ilinta uga imaanayso waxa weeye waa iftiinka badan oo moobil ka soo baxaya. run ahaantii khatar buu leeyahay. xitaa waxaa dhici karta in kansarka indhaha aad ka qaadid. dadku markay moobilada isticmaalayaan khaladaad badan bay sameeyaan. leerkay damiyaan moobilka mugdi ku isticmaalaan taasi waa khatar. xitaa haddii aad moobil isticmaalaysid leerka daaro. midda kale tala kale aan ku siinayaa saacadaha aad moobilka isticmaalaysid
ha kuu xadidnaato micnihii yeelo saacado aad nisatid oo moobeel la'aan aad tahay oo aad fikirtid waayo markaad fikirtid waxyaalo badan baa kugu soo siyaadaya ama xilli aad ducaysatid oo kale samayso wiilka waxa ugu yidhaahday alxamdulilaah maanta aad baa u caafimaad qabaa indhahaygu ma ilmaynayaan sidii hore waxbaa iska kay bedelay maadaama 4 bilood aan taleefan la'aan ahaa qodobka labaad uu wiilka ii sheegay waxa uu yidhi waagii hore hurdadeedu way yareed waxaa laga yaabaa in habeenkii waqti yar aan seexado laakiin haddeer maadaama taleefan la'aan ahay xilli hore iska seexdaa waana saxo hurdada caafimaad bay leedahay hurdo la'aantuna waa khatar qodobka saddexaad uu wiilka ii sheegay waxa uu ahaa waxa ugu yidhaahday saaxiib awalka hore moobeelkaa isticmaali jiray oo qol baan ku xidhnaa haddeertaan dhallinyarta asxaabta ee waqti la qaataa oo meelahaas iska soo wareegaa socodkayguna waa badan yahay wuxuu yidhaha awalka hore waxaa dhici jirtay in maalintii iyo gelinka dambe oo kale iyo xitaa habeenkii mararka qaar inaan qolka isaga jiro oo moobeelka iska isticmaalo laakiin haddeer maadaama moobeel la'aan ahay magaalada iska wareega asxaabteeda waqti la soo qaataa arrintaasna waa sax wiilku 3 qodob buu ii sheegay qodobka afraadna anaa ka dareemay oo markaa weydiiyey arrintaas ma sax baa wuxuu igu yidhaahdaa haa waa sax qodobka afraad waxa weeye run ahaantii markaa wiilka u fiirsado waa qof aad iyo aad u maskax badan oo haddaad erey hadda u sheegtid 3 maalin kadib ereyga waa xasuusan yahay inuu maskax badan yahay waxyaalahan ku dareemo waxa ka mid ah maalin anoo iska fadhiya oo iska jiifa baa waxaan akhrinayay 10 saxaabi ee jannada hal mar loogu wada bishaareeyey baan tirinayay goortaan tiriyey kadib isaga way maqlaayay dhowr maalin kadib waxaan arkay isagoo 10 saxaabi ee jannada loogu bishaareeyey isagoo tirinaya waxaan ku yidhi war saaxiib waa taqaanaaye wuxuu ugu yidhi saaxiib awalka hore ma aqoon maalintii hore aad tirinaysay baan xifdiyey run ahaantii aad baan ula yaabay awalka hore isagoo aqoon hal mar keliya oo aan tiriyey buu ku xifdiyey waxaan ku yidhi saaxiib malaha maskaxda badan waxaad ka keentay waa moobeel la'aanta sababtoo ah annaga moobeelada isticmaalna badankeena waxaa laga yaabaa inaan ilowsho badan nahnay hawl haddeer dhawaan laguu diray inaad ilowdo baa dhici karta waxaasna waa moobeelka taasina inay runtay tahay waad dareemi kartaan intaas ayuu mawduuceena ku egyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh